ساتير تعبنا وانا لقلاي انت اصلا اسكال سو دغايان دكسي سره سو دغان جامعه دغاي جامعه دغاي ويلكو جامعه دغاي انت واحد دالدو هلا ماله واحد دالدو وقفك هلا ماله انغا دوغنا انغا لا wareegno واحد دالدا helna male anaga واحد دالدا helna waanaga dhamaadeen wiilashanadii beenbeena lagu dilay shacabaan nahay masaakiinaan nahay hadda masaakiinta lagu soo guriyo noqdo maxay hata wax ilmo xunka ay mobilada ista laga dhaco annakana nalaayo gal ilaahay ma halkan oo ah isgooska control balcad degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir sidaad u jeedaan waxa ka socda banaanbax lagu dalbanaya cadaalad ehelka halkan isugu yimid ee banaanbaxa dhigaya waxay markaasi cabasho ka yihiin in aysan cadaalad u helin wiilkooda oo maalmo ka hor lagu dilay degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir waxay halkan ka dhigayaan banaanbax ay wiilkooda cadaalad ugu dalbanayaan dadkan ayaa isugu yimid in ay markaasi la soo qabto ninkii dilay wiilkooda oo la sheegay inuu ka dhacay taleefan gacanta ah ee uu watay waxay madaxda dawladda iyo sidoo kale laamaha ammaanka ay ugu baaqeen in ay markaasi soo qabtaan dadkii dilay wiilkooda oo lagu magacaabi jiray Cabdirasaaq Cabdullaahi Maxamuud oo habeena ka hor lagu dilay degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir ama laamiga kala bara degmooyinka Hilwaa iyo sidoo kale Yakshiid ee gobolka Banaadir isbitaalka Turkiga ee u gaarka ah ragga waxa ka howlgala dhaqaatiir ajaanib ah kuwaas oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca taranka ragga iyo dhalmo-la'aanta ragga dhakhtarka ayaa ka daaweyn doona cudurrada ku dhaca xaniyaha iyo xanuun walba oo aad ka dareentid qanjirka borostatada ragga iyo baxa degdega ah amiirida ragga iyo shahwada ragga oo daciifta soo booqo isbitaalka ku yaala xaafadda Taleex ama nagala soo xiriir nambarka shaashada ku qoran annaka cadaaladaan u baahannahay ilmihii waana laga laayay wiilashan ku saatir tacbeelna waana laga laayay intaas sana iskal soo dhigayaan dugsi sare soo dhigaan jaamacada dhigay wiilku jaamacada dhigay waa u safkan u saa kala qaadnay waa u shaqeeyay wiilka waana laga dilay niman askar ah naga dileen bajaajkay ka dageen bajaajay soo qaateen waa ka dageen wiilashii markay kala carareen naxbada afka ay duudka ka saareen halkaas oo wiilku ku dhacay annaka cadaaladan doonaynaa cadaaladda hana siiyo dawladda cadaaladda hana siido hadday dawlad ilaahay ka cabsataa cadaaladda hana siiyo dawladda ma la xiriirteen dawladda waa la xiriirna mana la soo qaban ilaahay hadda ninkii waa sugaynaa annaka waa la duugay wiilka waa la duugay annaka waxa waaye maxay ahaato waa naga dhamaadeen wiilashanadii beenbeena lagu dilay shacabaan nahay masaakiinaan nahay hadda masaakiinta lagu soo guriyo noqdo maxay hata wax ilmo xunka ay mobilada ista laga dhaco annakana nalaayo gal ilaahay ma xaq ilaahayna ma aha subhanallah hana la daayo dawladda maxay hata dadka nimanka tuutaha naga ceshato nimanka tuutaha leh ilaahay ha laga cabsado ilaahay waxaan ka barina meel uu ku soo noqon inuu ilaahay ku rido meel daray meel cil Allah ku rido Allahu akbar Allahna ilaahay arinteena aan weydiisana Allahu akbar rabna xasha Sheekh Maxamuud cadaaladaan ka rabnaa wiil yar oo sanadkan 18 galay waana la dilay nin interes dawlad tuuta dawlad sitaa dilay oo bajaaj la cararaya wiilka naga dilay anaga dilo mobilkiisana waa u qaatay wiil kale la socdo yiriisoonasna waa la darjilay waa la jirdila wiilka bareertiisa cadaaladaan ka rabnaa xaji Sheekh Maxamuud wiilka naga dilo waa inuu tiirka noo soo istaajiyaa cadaalad bas u baahanaa anaga wiil yar oo waayo hadda soo aanan qaaday oo jaamacad hadda bilaabo ilmaha 18 jirka sanad 18 oo gala cadaaladaan u baahanaa nin waxa naga dilay tuuta interes dawladda ah naga dilay anaga tuuta sitaa naga dilay bajaajoona sitay xoolihiisana waa u qaatay wadnahana xabada uga dhuftay wiilkeena waa dhinta cadaaladaan u baahanaa Allah cadaalad agtiisa taala ilaahay waxna la soo xariiray misana la hadlaa anaga ma arkin anaga la warwareegna saas ay tahay fooqa waxay raajinay wiilka ku dhuftaan xabada fooqiisii ay raajeen waana waayeen anaga helna fooqan anaga hayno wiilka waa duugna anaga waxaan ahay wiilkii la jir dilay iyo midkii la jir dilay hooyadii
wiilka la dilana eedadiis ayaan ahay waxaan maqlay cunugayga codkiisa oo ooyaya markaan banaanka u soo baxana waxaan arkay wiilkayga oo dhulka yaala iyo mootada oo cararaysa iyo midka kale dhulka yaala meeyda markaan ku fiiriyana aan u taagana wax nafa kuma jirin askarigana markuu nafta ka dhacday ee xabadda uu ku dhuftay ayuu ka qaatay qolabada baalka moobilka meyd asagoo u yaala oo xabad u yaala ayuu ka qaatay moobilka asagoo xayaataa kama uusan qaadan cabdirasaaq cabdullaahi maxamuud ayaa la yiraahdaa qalad ayay nagu tahay in askarna la rabo inay ammaankeeda sugto inay maalin walba annaga ilmaheena laayaan markii ugu horreysana maahan aniga xataa wiilkayga waa la dilay baskoolad ayaa lagu dilay 3 nin ayaa wadatay mootada mid darawal ayuu ahaa midna dharka wuxuu watay hal nin aad tuuti watay halka wiilka dilay tuuti watay wiilkayga midka dharbaaxiyahayana wuxuu watay macawis anaa indhahayga saaray iyo jaakad cad oo bara madow leh jaakadu way u furaad waliba runta ana idin sheegayo waa been waxa uu watay labtuuti watay hal xabaaya tuuti watay runta idin sheegayo maalmihii la soo dhaafay waxaa kordhay dilalka dadka dhallinyarada ah ee lagu geysanayo magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoona markaasi toddobaadyadii ugu dambeeyey magaalada caasimadda ee muqdisho iyo deegaanada saddexda ah ee hoostaga ay ka dhacayeen falal ammaanka liddi ku ah jacfar maxamed tv-ga SB X Control balcad degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir